السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا ذي سلامي ما شاء الله تبارك الله. فجر وناكسن، صبح وناكسن، دور وناكسن، عصر وناكسن، مغرب وناكسن، عشاء وناكسن، وقت والبيكوت طهي وناكسن. الحمد لله الذي أماتنا ثم أحيانا ثم إليه نشور. وعسبان وسوبري والنبت قبا والعافمات قبا بتقب كذا عافمات كذا نبت هذا ما شاء الله تبارك الله. إن ما أنت قوت اليوم كوحة عنيسيد يبريه دا عنيسيد وحي عني لهيد. ما شاء الله تبارك الله. هذا أي سديد نعمة إلهي واي الحمد لله. هذا الحمد لله الذي أماتنا ثم أحيانا ثم إليه نشور. وعسبان وسوبريه والنا طبعا ما أنتو حرب عنا رياكشن كبحي فيديو على صويابي لكن ما يدين سو قد بنتوني فيديو جيسا gabadha Soomaaliyeed oo ilmaha oo aabaheed ninka ka beeciyay waxaas waxa la dhahaa beec wa shira. waalidiinta gabdhaha ayagoo yar yar guur ku qalqaalinaya ama guurka ku qasbaya raba inaan ka hadlo videoga social media la wareejinayay laakiin badanaa dadka youtuberada ay ka soo wada hadleen arrintaas oo kale wacyi gelinay u baahan tahay Soomaaliya laga soo hadlaa idin leeyahay gabadha saas loo rafaadsaday aabaheed saas u gaday Soomaalida waxay xalaal ka dhigataa ama dhahaan inaad ka hadashid ma ahan waalidka hadduu qaldan yahay waa inaa loo sheegaa qaladkiisa. waalidka wiilka wuxuu u sheegi karaa inaa u sheegtid waaye oo dhahdid aabo meeshaasaa ka qaldan tahay hooyo meeshaasaa ka qaldan tahay waa in loo sheegaa. ma ahan inaa waalidka inuu wax qarribayo oo qarribka lagu fiirsado saas waalid uma ahan. waalidka inuu ilmaha bahdilayo sida hadda gabadhan oo kaleeta dharka tuuratay sabab aaba ee dharkeeda u tuuratay wajigeeda iyo hadalkeeda waxaa ku barmajisan iyo actionka ay sameynayso subxaanallah. qofkii hooye ee qofkii aabe ee qofkii markaas la soo guursaday ama wiilkii markaas soo guursadaa fahmi karo waxa ay sameynayso wax mucjise maskaxdeeda markay juusta ahayd wixii ugu dambeeyay oo lagu sameeyay gabadhaas ka hadlaysa. gabadhaas hadda intaas la eg ala leeyahay labada ay soo dhashay hal da ninkii dhalayaa ka qaatay hal daana way ka dhimatay. silacaas iyo saxriirtaas yaa iskale aabihii ka dambeeyo adaa ka dambaysid aabo hooyadii ku fiirsatay aabahaas ما شاء الله تبارك الله مسكحديس العقل واي العق أبياش قاركود مسكح ضد العق واي رنتي إن الشيء في عن هو ياش قاركود مسكح ضد العق واي قبديو إذا بميله كو جماعيون زاديه ورد حتى سررت تصيد الله تجا أنكسين اللي ليه هنا على القدرايا سبحان الله. مركا كهاد لأني شخصية دي إذا مركا المها هاي مركا لده لكن أن بالغ هاي أون أنير هاي لكن أو وليه بالك هو يده بالك أبيها أو باهناي طبطبيد أو باهناي dadka kale markay ku dhahaan hebla way weynaatinin hal ugu daro beerka qarrac oo dhijiro wala yaabi jiro waxay ka sheekeynayaan maanta oo dhan eragaas ay ugu soo noqon jiray wama baalag gabar yar oo ilmo oo saqiir ah inta nin ku qasabtay hadaba gabadha wajigeeda markaa aragtid aad moodaaba inay 20 sano gaarin ay labada ana soo dhashay silaca iyo saxriirta walla rafaadka maxaa la dhahaa mas'uuliyadda oo nin leeyahay dhibkeeda ay leedahay qofkii muwaafiq aanin lagu dari karaa. aabayaasha Soomaaliyeed iyo hooyayaasha Soomaaliyeed waxaa ka wacyi gelinaya aan ku sheegaya adiga fiirsanay oo aniga igu xiran ama bari arki doono gabadhaada ha qasbin wax ay rabin stress junaan ama waalasho ha gaarsiinin dhib ha u geysanin. markii midi usku tagta waxaa naqaana kabti way karanti intee ilayga soo gaaray adigaana qoosqooshatay. waalidiinta waxaa la hadlayaa amarkooda gacantooda ku qoosqooshanaya bacdeen hadhow midi markay caloosh ku tagta dhahayn ansaan ma u maleynin gabadhii hadda geeda iskaga xirtay aqal mudula lagu xiray meel lagu soo xayndaabay wax raba malahan asagii waa waayeel aabihii gabadhii wax uma qaban karo ninkii shalay gabadha dartiis ee u waalatay dharka u dhigatay cunugu uu dhalo ka qaatay uu ka tagay hadda maxaa ku daaweynaysaa $1,000 ama $2,000 waa ka dhamaatay gabadha ku beecisay madaxa waa laga xiiray ma wiila ma gabara naas kama muuqdo iyada dhan waa qalalantaa waa qof rafaadsan geed ku xiran hadii la rabo 24 saac waxa laga yaabaa hal waqti inaa wax siisid tabar uma haysid waayeelnima ku hayso subxaanallah. abayaasha qaarkood xaq Allah ku tuso hooyaasha qaarkood waxaan leeyahay xaq Allah idin tuso ilmaha asaas u bahdalaysin waa la isku haystaa insha Allah video kale ta soo gelinaya reaction ka soo bixin doona oo laga hadlaayo nasiiba leedahay cunugaada oo bahdalaysta hadaa riyo lagu tuso aaba la tusaayo riyo lagu tusaayo cunugiisa oo hadlaynin insha Allah sheeko oo live oo sheekh tafsiir ru'al la weydiinayo sidoo sheekh u xanaaqa insha Allah reaction ka soo bixi doona waa idin soo gudbin doona. Soomaalida waxa idin leeyahay af Soomaali waxa ka barateen ceeb waay hooyo waay ceeb waay aaba waay hooyada iyo aabaha xaqay leeyihiin ilma xaqay ku leeyihiin way soo kuriyeen
زينة يقروحها أولاد اللي أنا اللي يسي أديك اللي يسي بهدلت إنا بهدشت لجو مسين وح عيب إلا رهم مالهن وحي حق إيه إن لجهد لوا الحلال بين والحرام بين يا ناس waxa iskiga keen dhaxdarsoon Soomaaliya hala kala saaro gabadhaas maskiinada ayaa u maqan cid uma maqno ceelna uma maqno maanta waxa loo keenay social media in wax loo taro la daaweeyo odagii qasaariyay oo saas yeelay waxba uma tari karo asaaba waayeel oo waqtiga 80 jir ku jiro iyo 70 jir subhanallah ma sha Allah tabarakallah ya naas qulu xaq walaw kana murran حقها لغا هادلا حقها لا شيغا حتى هادو سبرك قرار يحي ان ما شاء الله تبارك الله دردارن هورو اها ما شاء الله تبارك الله يا ناس ان ربي كعبسيغا ان بدين اولاد حقي كوغ ليدهاي اولاد دلعا كبديس aa lagu dhahay waa dalicinaysa waxa la rabaa ilma sanka bere laga galiyo oo bahala iskaga dhigtid ilmaha hada qaylada ka badisid maxaa la dhahaa confuse ka badisid ilmaha damaanta hadal ka badisid hooyo caaytanta hadaa tahay aaba caaytama hadaa tahay waa laga dhaqaaqaya gabadhii marka inay soo kuusato garoomi yar soo noqoto 13 sano soo gaarto hadaa artid oday oo Yurubta ku soo stressed westernkaas tafshaan ku soo noqdo ilmihiisa ka kala carreeno naagtiisa ka carartay Soomaali imaanay 2,000 ku siinaya runa muudawa ku daraysa saasa ku dambeynaysa yaanaas ilaahay ka cabsada ilaahay ka cabsada youtuberadana waxa leeyahay gabadhaas videogeeda la soo qaata hooyooyinka Soomaaliyeed iyo aabayaasha Soomaaliyeed oo $2,000 oo meher ahaan gabdhaha loo siinayo oo gabdhaha waxa isku bahdilayo oo gabdhahan gudaha iskala hadlaayaan ay sida gabadhaas oo kaleeto waalanayaan birina geed la iskaga xilaya hala reaction halaga bixiya dardaarankaas ay siinaya xaq hala sheega yaanaas xaq hala sheega maanta idaacada gacantaada ku haysataa maanta meesha ka hadli kartid gacantaada ku haysataa qofka muslimka oo dhibaataysan hada ugu kaalmeyn karin hiil iyo hadal ugu kaalmeey hiil ama uu hiiliyo hadal ugu kaalmeey oo dheh tan waa khalad hala soo dhaho gabadhaas arinteeda halaga reaction badan halaga bixiyo gabadha actionka ay bixinayso waa markii miir ugu dambeysay wixii lagu sameeyay ee action ka bixinaysa yaa naas ittaqullah hooyooyinka qaarkood waxa leeyahay ilaahay ka cabsado aabayaasha qaarkood waxa leeyahay ilaahay ka cabsado gabadha iyadoo raali ka ahayn guriga lagu qasbaniyaa sanka laga dulaynin oday waayeel oo adiga kugu faca oo aabihi ku faca markuu gabadhiisi ku qasaariyo ma sha Allah tabarakallah waa nin la soo bahdilay ama Sacuudigan ku rafaaday oo islaantii wax walba kala wareegtay ama waa nin westernka ku soo rafaaday oo ilmo wax u haynin oo war u haynin waxa laga yaabaa darbiyad inuu jiifan jiro guriga mar hore laga soo baxsaday waa hore Soomaaliya oo imaanaya Yurub ka imaaday neeftiisa badilaysa gabadha la waalanaysa shirkiis iyo shurufkiis qofka bini aadanka marka 10 gaartid 20 gaartid isku shir matid marka 30 gaartid shirkaadu isbedelaya 40 marka gaartid waa ka sii daran tahay 50 marka gaartid 60 marka gaartid shurufkaas ay la dhimanaysa gabadhaas subhanallah qofka bini aadanka shir ahaanta ma ahane jismi ahaan uu isu bedelayo kul ma asida weynaatid waa sii bedelaysa haduuna odagaas nadaafad ka seenin waba oday iska tacbaane subhanallah ilaahay iimaanka noo sugo waalidiinta xaq Allah tuso waalidiinta qaarkood sida aabahan oo kaleeto mar tafaxal kayle oo midi calool ku tagto oo social media gabadha keenayo wuxuu leeyahay gabadha iga waalno geed iga xiran asaawale hawaashta ma dhaha asaawale subhanallah waalid waay lama hadli karo wala la hadli kara waalidka inaan run u sheegtid waay xaq waa in la sheega haduu qaraar yahay xataa geedu ku xiray silig dheer u sii daayay haraan haduu soo galay iska macilin karto meel duuri ku xiran tahay daba qarof haduu soo galay iska macilin karto mas haduu soo galay iska macilin karto iyada basaas wixii maskaxdeedu ugu dambeeyay ee ku mashquulsan tahay gabadhaas ani inaan soo galay videogeeda inta ma rabo qofkii oo Soomaaliya TikTok waa laga wada arkay isbuucan laakiin mostly dadka ka soo wada hadlay waa dad oo mar lila bit oo aad iyo aad u yar waxaan leeyahay Soomaaliya waxaan oo kale hooyooyinka Soomaaliyeed iyo aabayaasha Soomaaliyeed iyo dadka ilmaha walaalahood soo koriyo rajanimada ku soo koriyo ama agoonnimada ku soo koriyo 2003 iyo 4 markii dibadahan laga tago irqaa lagu sameeyo indhaha looga cameynayo videoyaashan in laga soo hadlo way videogaas laga soo hadlo way dadkaas in yacla dhahaw subhanallah waxa soo kala ma haboono gabadhaada ha iska qasaarinin biricid kula daaweynaysa malahan aabiye hadda uu imaanaya social media wuxuu leeyahay gabadhaana iga xanuunsan xanuuna dunya xanuuna aakhira adaab u keentaba inta la jibta laha adaab u keentaba xanuunka adduunyada iyo dhan oday u raay inta u dhiibtay oo waayeel oo 60 jir ama 50 jir siisay gabar 10 sano jirto ama
15 sano gabadhaas markii la guursanay qiyaas 2 sano ka hor ba haday ciyaal dhashay ama 3 sano ka hor waa waxay ahayd oo 14 jir meelahaas ay ahayd haddana maanta qof 20 ay jirta hadii la dhaxataa ma u qalanto saageedaba lagu xiray bahal camal meel iskaga xirintay waa waalantaha lagu leeyahay ilaahuna soo hanuuni aniga ba Allah iga dhigay awlaad ha loo turo awlaad ilaahay nicmo ku siiyo waaye dhoodhoob inta dhoodhoobi kartid tana laga qaadaya maalintaasna ilaahay u maqan ayaga ما شاء الله تبارك الله أولادها كو قصبين سنك هكا قلينين قبدا نيني ربينها كو قصبين ويلكن ناغو ربينها كو قصبين أنا أمير هايسكا ديجين والدني ماذا هدالك عاقا حشونايو وإلهي قوة كو قديبي ما شاء الله تبارك الله إلما هذا هايسكا دايعين بالرعد كل الداوين يسمالها سيدا عبان وكاليتو سوشيال ميديا ويالا فيديو هدارتا تكسو فيرسو لكن أنا ما انتو حار رياكشن كبحناي وكاوانيناي هو عباها سوكال إنا اسكو نقونين او قسارة كو دنبينين قبدا هو يدد مبلا الشيقين من رجع ما أقانو mahabartii afka odaga aga istaagay odaga haduu nahabnimo meesha la soo istaagay uu leeyahay gabar ayaga xanuunsan waa gabar xanuun kasta asaga uu u keenay oo nin asoo kaleete ee farta ka saaray wixii la rabana laga sameystay saasayba ilmo ku dhashaa lagu yiri ilaahayna soo hanuuniyo ilaahay xaqahana tuso idinkana ilaahay xaqaha idin tuso ma sha Allah tabarakallah yaa naas xaqaha la iska ilaaliyo xaq darrada la iska ilaaliyo oo xaqaha lagu dhaqmo oo awlaada amaana lagu dhiibtay waa ina waxa rabtid ka sameysatid ma ahan ina waxa rabtid ka sameysatid ma ahan wallahi sheekh tafsiir aan ku galay oo tafsiir ru'a rabay inaan weydiiyo oo live ka aan ka qayb galay wax uu dhigay hada artid oo ashahaadanaysa insha Allah video ka soo sameyn doona waalidiinta oo wadanka sida loo karbaashayo waa yaabaysa wax ay sameynayaan odagaas oo kale waxa fiicnaa wadamada sharciga ka jiro in uu joogi lahaay ma sha Allah tabarakallah عشركيس على تصل هاي يا ناس إلهي كعب صدا والدين تقبلات وحاليها إلهي كعب صدا المهن أمانة لوجودي بتوعي سيد حق أمامل أنا أمير استرس أذيكو هايستو يظروف حق الأذيك حاجة تمت المها كل قرص دعين قبليها كوبيعين هدون ما شاء الله تبارك الله بلا شيء نقناي ولا جا كلا تجا يضو والنو جيت كوكو حرن سيد أبهان وكلته فيديو ما أنت ماشي ساعة بحياة حغير عصبية إقاطي waxaan arkaa waxyaabo badan oo cajiib leh waxa arkaa oo ani wax qaarkood aan ka xaliyay waalidiinta qaarkood oo ana waalidey ilmaha dhulka ugu daraayo dhulka ma taqaana ugu daraayo oo fil akhirna ugu dambeystina meel ay iska qabtaan lahayn ku dhacayaan ma sha Allah tabarakallah marka cunugna xatid cunugna aad hoos u dhigtid adigana 10 kala ku sugay taasina waa فيلم قوني فيديو قوني سبحان الله إلهي حقنا تصو إلهي حقنا تصو اللهم آمين إن فيديو رياكشن كأك بحناية قبل حنون سنة السوشيال ميديا لكاني أو أبهد يضع سكوك الرفاتسين ما أنتنا فقري لما كن شيء طبعا كنا ضر هذا الوصية وإذا ما نسا قبل يكون داوينا ومركز شيء كذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيديو ماشي ساكسو قبل قبينايا